safiirka safaaradda dalka Soomaaliya wadanka Ciraaq Khadija Maxamed Al-Maqsuumi ayaa kulan isbarasho la yeelatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Ciraaq waxaana kulanka lagaga hadlay sidii u wada shaqayn lahaayeen safaaradda Soomaalida iyo jaaliyadda inaan iskiin baro safiiradda jaaliyadda Soomaaliyeed ee halka joogta oo inteedii badneed ay joogaan ay naga mudan yihiin dhowr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حاجة على عصي ما دام سفارة الصومالية ممكن هو الجاليد اسكو إمانتو سيبر مقصود له إماجة عبد الرحمن المختار نوريا ما حاجة على عصينا البريتين سفارتيني خارجينا إن شاء الله وحي الله وحق بيانتي لنا نصيري ووفو زيه توصل كي موجوغا وكو حاجة على معها وكلها سنتين ما عطنا بشين إماتتين أفريقيا إله رمضان كريم إله موفي زيه وارجمون ورمو حارجين إن شاء الله دكين هواينا قوتين waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ka ahaa qunsulka safaaradda Soomaaliya Maxamed Ali waana halkan wax yar ka sheego oo ah muddo badan waxaad ahaydeen dad iskooda u degan oo iskooda isu dabara laakiin hadda maad ilaahay waxa ah in aad leedihiin xafiis oo safaaradeed oo loogu talagalay inuu khidmeeyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan Baghdad inta badan waxaan aad rabaa halkan inaan ka sheego xiriirka ka dhaxeeya safaaradda iyo dadweynaha kale waxa aad isugu shuqulay ama isugu howlay isku xirkeena iyo iska warqabkeena Cabdiraxmaan iyo Mukhtaar asagana howl yar aan qaban aad baan u mahadinayaa ilaa iyo wadankan isbedel ka dhacay 2003 safaaradda management ilaa sanad ka hor ay timaado biictaar Soomaalida ama safaaradda Soomaalida intaas waxaan u ahayn dad يعني dhibaatooyin badan wadankan aan kala kulanay dad naga dhintay oo dhibaatooyin badan ay naga soo martay dad safaarad leh maanan ahayn muddada dheer yani ama xiriir la leh wadankii ama Soomaaliyeed safaaradda markay timid aad baan ugu faraxnay runtii wixii de wax qabad ay safaaradda u qabato dadkeeda inta ka badan oo ka suweynaa wayna noo qabato waxyaabo fara badan haddii noqoto xagga baasaboorada iyo haddii noqotaba in ixtiraam zaid aan ka helo wadankan aan joogno waayo safaaraddu yani xiriirka iyo maaragtay iyo dawladda kulley yani waxay leedahay yani waxay leedahay cilaaqaad safiira Khadijana aad bay yani ugu faraxnay yani maashay wadankan ay timiday iyo safaaradda Soomaaliyeed safiirka safaaradda dalka Soomaaliya wadanka Ciraaq Khadija Maxamed Al-Maqsuumi ayaa sheegtay inay ku dadaali doonto xiriirka ka dhaxeeya safaaradda iyo jaaliyadda Soomaalida ee wadanka Ciraaq waxayna xustay inay diyaar u tahay sidii loo fulin lahaa barnaamijyo keeri kara wada shaqayn dhab ah oo dhex mara safaaradda iyo jaaliyadda Soomaalida Maxamed Saciid Saxaaf Universal TV